kulankani maanta ka dhacay maxkamadda gobolka Awdal ayaa ahaa mid xambaarsanaa waano iyo alla ka cabsiga waxaana uu dhex maray qaar ka mid ah culimada magaalada Boorama iyo bahda garsoorka iyo howlwadeennada kala duwan ee maxkamadaha racfaanka gobolka iyo degmada waxaana kulankani soo qabanqaabiyay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal Idris Ahmed Muuse isagoo oo daafuray waxaana uu sheegay in markasta loo baahan yahay alla ka cabsiga iyo sugidda cadaaladda maanta waxaynu u fadhinaa nadwad diiniya oo nooceeda wali maxkamadaha lagu qaban baahi dadku ay wacdiga u qabaan darteed ayaa kaliftay inaynu u qabanno waxa laga yaabaa shaydaanku inoo sheekayo la yiraahdo ma adigoo sheekh hebel wax ku sheegaya nabigu kaleey salaatu wasalaam wakii saxaabada ku codsan jiray oran jiray kaalay igu dul akhriya kaasay saxaabadu ku oran jireen adigoo lagu soo dejiyay baan ku akhriyeynaa markaas uu yiri waxaan jecelahay inaan ka maqlo cid kale wakii saxaabigu sheegay suurada markaan bilaabay yar kadib aan socday فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا مركو غاري والصحابي يقول لي waxaan arkay indhihi nabiga lilmaynay عليه الصلاة والسلام ka kulli waynu u baahanahay cid waxayna xasuusisa maadaama qodobona dul fadhino iyadoo ay is haysta mararka qaar kood jawigii routine-ga haynu ka baxno oo aynu u baxno jawi kale ayaa iska haboon saadarteed كل فائدته waxay noqon doontaa marka wax la dhageysto aqoontuna isweydaarsiga ku qurux badan tahay oo in kasta qofka uu haysto haduu wax iska bido wama utiitu min al-ilmi illa qalilan ba meesha taala marka waxaan dardaarmaynaa inaydan markaad hoolkan fadhidaan aad dhageysanaysaan wacdiga awoodii garsoorka inaan lahayn awoodii aan leenahay ardayda oo sidaynu u jecelnahay in markaynu dacwadaha laynoo ixtiraamo laynoo dhageysto hadalkii bilaadanka aan leenahay muxuu ahaa systemkii nidaamka ilaaliya hadalka rasuulka iyo hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu u dhagraaricino si akhlaaq leh u dhageysano wixii intaasi ka dambeeyay qaar ka mid ah culimada magaalada Boorama ayaa jeediyay muxaadarooyin la xiriiray cadaaladda iyo alla ka cabsiga marka in la iskaashado culimada wadanka joogta wixii la garan waayo loo gudbiyo aad bay u fiicantay in lagu degdegana ma aha waxyaabaha ugu adada waxa kamid ah dhaxalka kale dhaxalka Ilaahay baa qaybiyay subhanahu wa ta'ala wad ogtihiin waxa jira dhaxal la iska qaybiyo oo aan dariiqiisi marinba dhaxalku wajiye fara badan buu leeyahay qof dhintay oo inta soo jeer la dhaxlaya jirta qofku aduuna garanayna ahkaamtii kala ratibmaysa iyo wixii ka dhalanay warkaas uu dhintay naga daayo inuu yiraahdo iska dhici kartaba uu ka soo qaado qof dhintay marka waxa weeye waxyaabaha mucaqadka kale inaad culimada la kaashataan in dib loogu noqdo oo la baaritaan la sameeyo wixii dhinac walba la iska taagay marka xukunka la ridaday laakiin se wax beritooliya kugu soo noqonay oo hadii dib marka hoos loogu dhaadhaco ogaado in garsoorahan uu khalad xukumay isagii bay marka ceeb ku noqonaysa tuunka halka uu badan yahayna waa la saari oo waxa la oranayo waxoogaa buu qaataa loo إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلهي قفك وحو أمر يا ودك أمر يا وفر يا عدالة قرصور هي سنان هي إحسان لبدا شيء هدان كلا بيامي عدل جوا حوي جاري بادي بس جاري كل كان قفك كي بينا يسي قفك يد كي بينا يسوي سكوض أجي مجلس العقد جيبات كلا تكتين kolkaad ku kala tagteen iyo saddex ayaamood dabadeed uu yiri warniyo birbaa xumaad birbaa arkayada xun wuxuu ku yiri walaalkay iga celibo ku yiri cadaaladdu waxa weey maadaama majliskii baycaasi uu ku dhamaaday inaan la celin gaarigaas ihsaanku waxa weey inaad tiraahdo waan ku wanaag falayaa keeno mid kala qaado taasina waa bil ihsaan sidaasay kala yihiin sidaas waa inaad wax ku wadaan baa in looga baahan waxaway waxaan anigu niga doonaya oo anigu ku qurux badnaanaya oo inigu aad ku qurux badnaanaysi oo dalku ku qurux badnaanaya oo gobolku ku qurux badnaanaya inaad adigoo noqdo cadaalad socda
ونكن هو بعدالة سعطان دولك كركيس أين لا يدعه تاسع هذه أدنى فرح كلين marka walaalayaal haddii ay tahay madax iyo haddii ay tahay shacbi iyo haddii ay tahay culimo iyo haddii ay tahay cid kastaba dee waxa weeyaan dee ninka garsoorihii cadaalad buu ka xataa culimadu waxay gaarsiiyeen yani tawsiicu nadaraat inuu qaybiyo indhaha markay dadka hor joogaan halkaa baa la soo gaaray markuu kan eegaya iyo hadduu kan daymoodo kanna inuu dayo hadduu kan xogaa la yar diriro kanna la yar diriro ma arkaysaa kan kursi fiican hadduu fadhiisiyo kanna kursi fiicana fadhiisiyo hadduu midna kursi engegan ku fadhiisiyo midna uu ku fadhiisiyo kursi yani waxa weyn raaxo dee markaaba sii muuqataaba inuu siduu xukumay indhaha la gaarsi cadaaladii tawsiicu nadaraat indhaha eegida uu eegayo dadka ayaa xataa la yidhi waa inuu cadaalad ugu sameeyo marka culimada iga dambaysa marka qofka walaalkaayo dulmiga uga gargaarta waxa dhigeen culimadu waa awjab alwaajibaat walida inaad wax ku qaadato maaha hadhow hadduu wax ku siiyo ha ka qaadin bay yidhaahdeen dulmiga aad ka difaacday darteed midna waxa weeyaan bay yidhaahdeen qofkii oo ku yidhi dawladdan mansib ka doonayay adaa dawladda weji ku leh ila hadal wasiir baan rabaa ama wax kale aan rabaa umana qalmo qofkani wasiirnimada ka bacdi reernimaad ku kaxaysay ama wax kale aad ku kaxaysay meeshii baad geysay hadiyadu ku keena wax aaran bila ta kaliya la ogol yahay waxa weeyaan qof shahaado wata oo aqoonteedii la haduu ku dhado sharikaadkan ka doonaya amal inaan ka qabto ee aadna sharikada wajibaad ku leedahay iige uuna qof munaasib ah oo u qalma inuu shaqada qabto waad geysay waad ka wastaysay shaqadii baa la geeyay haduu mushaarkiisa wax kaaga soo diro taas waa sax bay dhahday laakiin labada hore lama ogola كان وحلو سو دليشده حديث ورسول الله عليه الصلاه والسلام من شفع لاخيه شفاعه قفك ولالكي شفاعه وقلا فاهدى له هديه وهديه وصادره فقبلها هديه اقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا الباب وينو البابدي ربا ايو قراعي waxaa sidoo kale iyaguna goobtaasi ka hadlay gudoomiyeyaasha maxkamadaha degmada Boorama iyo gobolka Awdal waxaana ay soo dhaweeyeen culimada iyagoo uga mahadnaqay wacdiga waanada ah ee ay u soo jeediyeen waxaan ku soo koobayaa waqtiga gaaban awgeed culimada iyo gudoomiyaha inoo soo qalab qaabiyayba waxaan leedahay jazaakumullahu khayran intaana inaad noo soo celiso dhowrkii bilood mar waanadaasina waa muhiim markaste inaan de saaxadda inaan ku jirno ogaano iyaguna khayr Allah siiyo markastaba in la iswaaniyo la kala qaato muxuu iyaguna noo ogaadaan iyo culimadii bulshadu wax weyn baa la hayaa amniga oo dhan baa la hayaa ugu dambeyntii waxa halkaas su'aalo kala duwan lagu weydiiyay qaar kamid ah culimadii ka soo qayb galay kulankan waxaana culimadu ay su'aalahaasi mid ay uga jawaabeen intii uu socday kulankani Axmed Ciltire wararka warbaahinta Awdal Media Group magaalada Boorama